madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha guurtida gudoomiyaha maxkamadda sare madaxweyne ku-xigeenadii hore xusbiyada qaranka saddexda xusbi waxaan idinku salaabayaa iyo barti sharafta kale meesha ka soo qayb gashay waxaan ku salaabayaa salaata islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaynu xusanaa waa 26 juun 58 sano ka hor aynu xornimadeeni kala soo noqonay ingiriiska waxaa 4 qodob ayaan ku dhig uga dhigayaa waxa weeye odayaashii ugu horreeyey markii ingiriisku soo tegay diiday inay dhulka u soo degaan markabka dushiisa kula saxeexday inaynu maxamiyad noqono aada iyo aad baan u hambalyeynaya waa inaynuna xusnaa odayaasha waktigaa kartay inay dhulka ka celiyaan 26 halgankiisuna halkaas ka soo bilaabmay waxaa ku xigay halyeygii maxamed cabdillah xasan oo nin somalilan ahaa oo taariikhda aynu leenahay isaguna ku sugtan oo gumaysigii 22 sano la dagaalamay waxaa ku xigay xaaji sheekh bashiir iyo culimadii kale ka dambeysay ayaa iyaduna ka dambeysay waxaa kaloo ka dambeeyey 3 xusbi SNL USP iyo NUF iyaguna halgankii ka soo qayb qaadatay waxa weeye halkan dheer baa la soo maray taariikhdana waxaa la rabaa in lagu xuso dadkii dalkan wax u soo taray waxaa ku xigay halgankii weynaa SNM dhiigooda raggii u daadiyey uu ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo wasiirka daaqilka madaxweyne ku-xigeenadii iyo rag badan oo halka fadhiya waana magacooda xusayn waxaana aada iyo aada ugu ducaynayaa kuwii aan soo gaadhin barwaaqadan iyo bashbashkan aynu ku tallaabsanay marka waxa weeye taariikhda waa in la qoraa oo loo baraa jiilka cusub ee soo socda raggii hore waa wada gaboobayaan intaa waxaa ka leeyahay 26 juun waxaan xusuustaa nin cabdiqaadir sooba la yidhaaho oo wasiirka daaqilka ahaan jiray ayaa wuxuu ka sheekeeyey markii aynu xornimadeena xamarkeynay ayuu wuxuu yidhi talyaaniga 5 nin loo saaray oo isaga iyo juujo iyo ku jiraan waxay yidhahdeen Somaliland waa dad dhib badan ila ka celiyo yaynala midoobin wuxuu yidhi waxaanu u tagnay maxamed xaaji ibraahim gaal iyo odayaashii waxaanu dabcanay inaanu eegno oo ay dib isaga noqdaan waxaanu qaadanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya qaata weyn yidhaaheen waxaan islaahay waxay odhanayaan prime ministerkaanu qaadanaynaa deedna waxaana ha cadhoodeen waxaanu prime ministerkana waa qaadanaynaa qaata yidhaaheen waxaanu qaadanaynaa taliyaha ciidanka taliyaha booliiska wasiirka daaqilka wasiirka maaliyadda intaba waa qaadanaynaa wayidhaah qaata way yidhaaheen markay halkaa marayeen baanu nidha intaa hadday ogolaadeen shacabka ayaa iyaga ku kacaya marka waxay noo bixiyeen Fratelli Fesso walaalihii waalaa marka wixii aynu wadnay waxaynu ka helnay Fratelli Fesso walaalihii waalaa laakiin hadda ma waalina waa miyir qabnaa wixii aan la soo marayna waxaanu taariikhda ayay gelayaan waxaa kaloo aan isu istaagaya waxa weeye dagaalka ka socda Tukaraq cabdiweli iyo ina cali weligood dagaal ma yaqaan waxaa la yaab leh reer xamarka waxay yidhaahaan ninkii dhiban waaya keen dhalayana wuu arkaa muuse biixi na wuxuu baryayaa nabad cabdiweli iyo ina calina waxay leeyihiin waa dagaalamanaa marka waa wax la yaab lala yaabo waxa weeye cabdiweli iyo ina cali dhulbahantana u talayn maayaan 2 dagaal bay galeen madaxtooyadu waxay soo weertay qoriley ina cali wuxuu joogay burtille waa la hadlayo waxaan ku yidhi kaalaya u tacsidee dadkii lagu laayay beebayaasha madaxtooyada ka yimi
uma tacsiina wuxuu u tacsiyeeyey kuwii soo diray oo Putin fadhiyay cabdiweli dagaalkii labaad ee tukarag ee beerayaasha soo galeen ee jimcaale iyo jimcaaliye muxiidiin wateen wuxuu yiri Putin intii dagaalku dhacayay halkaas u joogay maanta inuu yiraaho waxaan u taleynayaa dhulbahante waa wax lala yaabo war waxba loo taleyne kordhis baa rabtaaye annaga kordhiska naqaane cid baan kuu soo diranaa adigoo aan haddi isku layn cid baan kuu soo diranaa kuu kordhisaa markaas lagu kordhiyana waxaan hubaa inaad dagaalka aad joojinayso marka isimada Puntland waxaan u soo jeedin lahaa si dhiig u yaraado cabdiweli iyo cali laba sano loogu daro deedna sidaas ay ku ogolaanayaan marka waxaan leeyahay dagaalku isil maaha dagaalku waa dagaal ka dhaxeeya Jamhuuriyadda Somaliland iyo Soomaaliya ka dhaxeeya isilna maaha isil lagu dagaalamayana maaha waxa weeye dadku beelay kala degaan qolo waliba xuduudda waa ka tallaabsan tahay annagu haddaanu ka soo jeedno beesha Laascaano iyo Sool iyo Sanaag iyo Buuhoodle waxaanu ka midnahay Jamhuuriyadda Somaliland ninkii ku hameeya qofkii ku hameeya Laascaano baan imanayaano caruurta tibula raga dagaalka abaabulaya waxaan u sheegaynaa waxa weeye 13 sano ayaanu maqlaynay salaadiinta iyo ismo Puntland ka soo jeeda oo reer Soola oo leh waxaan qabsanaynaa Laascaano nasiib darro qaarkood waa dhinteen kuwa kalena waxaan leenahay warinta ilaan dhiban kaayo dalkiini arka oo ibaata oo dadkiini u yimaado oo waanu soo dhaweynaa laakiin midda dhacasa hadda waxa weeye ninkii reer Sool iyo Sanaag iyo Buuhoodle oo dagaalka ka qayb gala waxa weeye inuu jinsiyadii Soomaaliland lumiyay oo ku soo noqonay carab baate halka iyo Garowe ayuu u joogaya marka waxaan leeyahay dagaal cilmi rabto Soomaaliland uma soo jeedo duufaano iyo dalkeeda inay dhisato ayay ka shaqeynaysaa haddaad dagaal ciil u qabtaan waxaad ka helaysaan kaalkacyo iyo mudug baad ka helaysaan maad xagga isaga sii jeesataan marka waxaan ku soo dhaweynayaa waqti dambe weeye madaxweyne waxa weeye dadkii dhintay dadka u soo dagaalamay ilaa xorriyadii keenay in taariikhda lagu qoro dadka la kala saaro nin waliba intuu iska tago oo xuduudda ka tallaabo ama xamar tago ama Puntland tago beri intuu soo noqdo la soo galbiyo taa u dulqaadan mayno waxa weeye waa in lagu qoraa buugga madow oo jinsiyadiisa la geliyaa oo aan lagu soo dhaweyn Soomaaliya inuu dib ugu soo noqdo hadduu qarankan dembi ka galay aad iyo aad baan u salaamayaa waa waqti dambe waxaan ku salaamayaa midnimada Soomaaliya waa muqaddas waxay isku keenayaan waa Somaliland calankaas isku keenaya iyo dastuurkaas isku keenaya waxay nahay wada Somaliland dalka ma kala lihiin midnimada iyo wada jirka beelaha lagu soo wadaysto dagaalada yaryar ee gudaheedana hal dhamaystiro dagaal waxba tari maayo ninkii dagaal rabo waa la ku soo socdaa diyaar garow assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh